waxa la yiraahdo divide and rule qaybi oo xukun marka sanad walba in isgooskan la taagnaado isgoyskaas la taagnaanayo saas ugu dambeyntii marka halkee kusoo biishubanay baasha waxay u badan tahay inay ku soo biyo shuban doonto amar ilaahay kuma darine in qofkii nimankan siyaasiyiinta ay diyaaradaha ka daataan sidii Kaabul oo kale Kaabul wixii ka dhaco kale unbaa la sugi karaa macnaha in diyaaradaha laga daato ama badda inta la galo lagu xarqado ayay imaanaysaa laa shaki waa see diyaarada yaa ka daadinaya diyaarada marka dee al-shabaab baa ka daadinayso oo micnaha dhexdooda kasoo dhex bixi markii nimankan is haysto dhexdooda kasoo bixi macnaha shabaab isgoyskan maalin walbaba hebelow soo baxayo isbaaro iyo ku nasiibsasay u jirto marka dambe waxaa imaanayso qoladan al-shabaab baa imaan doonto kadibna kuwii hore u cararay oo sii baxsadaa ama diyaarad raacay waa laga yaaba kuwa dambe waxaa laga yaabaa in dee ay haleeli waayaan qaar baa haleeli waayaya dee waa laga yaaba inay diyaaradaha ka daataan marka waxaa la sugaa ummadda Soomaaliyeed waxay sugtaa in nimankan ajnabiga ku gaaban ee ummadda jahawareeriyey ee ummadda baaba'ashay iyo ummadda duleystay ee dowladnimadii Soomaaliya burburiyey kuna tuntay inay marka dambe qola saddexaad macnaha inay hortanto soo dhex gashay intay timaado ay markaa ka faa'iidaysato khaladkan ciidda ka batay intay ka faa'iidaystaan sidii dee Taliban ay uga faa'iidaysatay ay uga faa'iidaysatay musuqmaasuqii iyo faragelintii iyo magaciisa assalaamu calaykum soo dhawaada Somali Scandic TV waxaana la jooga injineer Idriis ahna siyaasi falanqeeya siyaasadaha geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya injineer soo dhawow Somali Scandic TV injineer xaaladda Soomaaliya waxaa la soo sheegayaa in ay aad u cakiran tahay mucaaradkii iyo dowladda federaalka Soomaaliya in ay xaaladoodii meel xun marayso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe in ay ku kulmi rabeen Kismaayo safarkii waa baaqday la yiri arrimo siyaasadeed soo u baaqday maxaa ka dhaxeeya Jubbaland iyo federaalka Soomaaliya bal maxaa nooga sheegi kartaa arrimahan ma arrimo ayaga keligooda ku koobana mise dad saddexaad ayaa ku dhex jira horta dee arrintan Axmed Madoobe iyo dowladda federaalka Sheekh Shariif bay soo bilaabatay dagaalkooda Sheekh Shariif iyo Axmed Madoobe waa isku dhaceen Axmed Madoobe ka adkaaday Xasan Sheekh iyo asaga waa isku dhaceen Axmed Madoobe ka adkaaday Farmaajo iyo asaga waa isku dhaceen Axmed Madoobe adkaaday Xasan Sheekh iyo hadda waa 3 sano iyo ma zaada ayuu dagaalkoodu maraya waraan 3 sano maraya ayuu maraya marka waa hawl runtii haddana markaa fiirsadii adkaanaya isleeda qasab waxaa adkaanaya Axmed Madoobe sidee marka maxaa ka dhaxeeya hadda fiiri Axmed Madoobe Kismaayo haystaa ciidamo ajnabi ana waa la joogaan dowladana way kaabayaan Xasan Sheekh ciidamo ajnabi ah la joogo dowlada ajnabi ana waa kaabayaan marka waa laba nin oo siman waay laba nin oo siman waay marka hadday siman yihiin waad ogeydoo waaran buu u jaray asaguna waaran buu jaray sama xasuustid si fiican 50-50 marka waa laba nin oo siman oo aragta marka waa laba nin oo siman waay heshiiskoodii marka inay Kismaayo iskugu imaadaan maxaa soo dhex galay horta sidaada waa arrinta Soomaaliya waa arrin la yaab leh maxaa yeelay jaha male hal jaha oo lagu yaqaano ma jirto waxaa weeye waa shakhsiyaad iyo dad ajnabi ah iyo waxa ka dhaxeeyo bay ku koobanta
axmed madoobe baarlamaanka uu sheegto iyo wasiirada uu sheegto waa shaqaale asaga u shaqeeya waay xasan sheikh baarlamaankan iyo golihiisa wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha iyo waxaas waa shaqaale asaga u shaqeeya waay ma garanaysaa constitution marka mataqaanaa inta go'aan gaaro go'aankiisa fulinayo ma jirto hadba ninkan wuxuu rabo waay axmed madoobe wuxuu rabo cid ku taageertana wuu haystaa ee dowlada ajnabi ah ayaa ku taageero xasan sheekh wuxuu rabo cid ku taageerta wuu haystaa ee dowlada ajnabi marka maadaama ay sidaa tahay de axmed madoobe iyo xasan iyo ninka la yidhaahdo deni de wixii dagaal soo dhex maray waad garanaysaa siyaasad baa la isku baaba'shay ciidan baa haddana la isu adeegsaday oo waa la socotaa wixii raas gambooni ka dhacay wixii beled xaawo ka dhacay iyo gobolka gado meelo badanoo ka mid ah dagaalo ka dhacay xasan sheekhna hadda 7 bilood ku dhowaad baaba u hartayba xilligii beentahay oo loo saxiixay 7 bilood baa ka hartay marka uma arko de nin intaa dagaal soo dhex maray oo siyaasad iyo mataqaanaa wax walba isu adeegsaday oo ciidan isu adeegsaday oo wax walbaba isu adeegsaday oo waxba laga qaadi waayey haad dhici waaye geed buu haystaa daanyeer dhici waaye geed buu haystaa ma garanaysaa marka xasan sheekh dowladnimo kama shaqayn unukaala iyo isbaaru meel dhigtay macawisley buu ku bedelay ciidamadii dowladda macawisley iyo ciidamadii qabaaliga ahaana waxaa weye al-shabaab baa ka takhalusay maanta wuxuu marayaa meesha u dambeysuu marayaa marka uma malaynayo axmed madoobe maanta uma baahna dee xasan axmed madoobe maanta uma baahno xilligu u baahnaa waxaa xilligu mandateka haystay oo 2 sano ka hor iyo 1 sano ka hor iyo u baahnaa maanta waa last minute waay ma garanaysaa last minute baa la maraya xasan sheekh oo u dhammaatay rajo male dagaalka wuu ku fashilmay siyaasadda wuu ku fashilmay marka injineer hadda safar baa jiray oo baaqday oo ka dhexeeyey xasan sheekh maxamuud iyo axmed maxamed islaam axmed madoobe hadda waxaa lasoo warinayaa in kenya lagu shirsan yahay oo weli go-aano ay soo saareen mucaaradkii oo sheekh shariif ugu weynaa xasan cali kheyre cabdiraxmaan cabdishakuur iyo madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni iyo axmed madoobe oo garab kala ah intaasoo marka isku tagtay oo 2 maamul goboleed oo waaweyn oo saameyn weyn dalka ku leh iyo mucaaradkii ugu saameynta badnaa oo muqdisho joogay hubkana haystay go'aamay soo saareen leeyahay maxay ogtaa go'aankay soo saareen dabcan de waxay samaysteen xulufo ay rabaan inay uga hortagaan dabca xasan sheekh waxaan aaminsanahay inay ka guuleysanayaan sababta xasan sheekh doorashadii beentaayada qorigiisu isdhiibka ahaydna isagaa laalay maamul goboleedyadii la isdooran jiray oo doorashada musuq maasuqa ka dhici jirayna wuu laala kuwii isdoortayna wuu la dirira puntland iyo jubbaland labadiiba wuu la dirira kuwii uu yiri meesha iisi fadhiyana waa heshiis buu la noqda ma garanaysaa marka waxaasoo dhan way fashilmayaan wax shaqayn kara maaha sababta awood uu ku hirgeliyana ma haysto dhaqaale uu ku hirgeliyana ma haysto ya dowladnimo iyo nidaam iyo system waxaan la yidhaha constitutionna ma samaynin ee wuu burburiye waxoogaa yaree mataqaanaa uu farmaajo xilligiisa la sameeyey tiina wuu burburiye ma garanaysaa marka de xasan sheekh waxaa waaye waxaan u malaynayaa de ma garanayo maxaa laga baran karaa marka dagaalkii uu ku qaaday kismaayo dabcan mucaarad badan oo axmed madoobe kasoo horjeeday
ayaa maanta muqdisho fadhiyo maadaama hadda wadahadalka fashilmay oo dib u dhacay wax badanna ay raaskamboni ka dhaceen muqdishona ay fadhiyaan mucaarad oo kursiga axmedoobe isha ku hayo maxaa laga baran karaa dagaalka xasan sheekh axmedoobe horta axmed madoobe hal baa lagula challenge garayn karaa oo gobolka gado unbaa lagu mataqaanaa lagu challenge garayn karaa si fiican gobolka gadana ma leh maamul iyo hoggaan ma leh ma garanaysaa oo dadka gobolkaas degan oo hadda dee waa meelaha dowladda federaalka ay joogaan iyo ciidamada ajnabiga ah ay joogaan baan ka hadlaya waxay joogaan baardheere buurdhuubo luuq doolow iyo meesha la yiraahdo ceelwaq 5taas magaalo iyo garbaharey 6daas magaalo ciidamo ajnabi ah jooga iyo maleeshiyaad dowladda federaalka ka tirsan baa jooga marka laga reebo doolow oo dee saa la socota dee Etoobiyaanku ay qabsadeen ciidankii dowladda federaalka laga saaray oo Axmed Madoobe groupka taageersan baa meesha jooga marka maadaama ay saas tahay waxaa waaye Axmed al-shabaab baa ku hareeraysan afarta barjaha ka jiro cid awood leh oo inta al-shabaabkaas jiirto Axmed u tagi kartana ma jirto garanaysa diyaarad waa tii lagu geeyey raasgamboni wixii ka dhacayna waad ogeyd ma garanaysa marka Axmed dee halkaasuu joogaa xasanna ooma tigi karo cid kalena ooma tigi karto cid al-shabaab ku xoog badan oo inta al-shabaab jiirto Axmed Madoobe u tagi kartana ma jirto maya markaa fiirsan marka waa yahay injineere dagaalada hadda xasan sheekh uu qaadaya marka koonfur galbeed waa ogeyd dagaal buu ku qaaday oo wuxuu isku dayay in uu lafta gareen ka tuuro mucaarad badan ayaa soo dhashay markiiba oo macnaha lafta gareen kasoo horjeedo xasan sheekh wuxuu u arkay in lafta gareen uu la sii shaqaysto wuxuu yiri niyahow meeshaan iska joog doorashana ha qabanin ani adiga iska joogno ninkii wuu ogolaaday marka mucaaradka marka koonfur galbeed maxay ka baran karaa marka siyaasadda xasan sheekh maadaama intana uu weerar ugu qaaday waxba ka soo waayey kismaayana weerar ugu qaaday intana weerar ugu qaaday meel walbana oo weerarayo mucaaradna markaas dhalanayaan dadka maxay ka baran karaa marka siyaasadda xasan sheekh wallaahi dee uma malaynaya soomaalidu hadday siyaasad iyo muqarabnimo ay wax ka baranayaan dagaal oogayaashii bay wax ka baran lahaayeen ma garanaysa dagaal oogayaashii bay wax ka baran lahaayeen burburkii bay wax ka baran lahaayeen fiiri soomaaliya waxay lahayd 85tii mar aan iyo 85tii maraan raadiyo muqdisho dhegaysanayay waxaa la yidhi 250 mise 350 warshadood baa waddanka ku taalay 85tii warshado yar iyo warshado waaweyn warshado yaryaroo waxaa jiro shakhsiyaad ay lahaayeen oo aad u fara badan oo waddanka ku yaalay iyo warshado waaweyn wixii oo dhan agtaa la mariyey garanaysa warshado waaweyn oo 100,000 kun ay ka shaqaynayeen 100,000 kun ay ka shaqaynayeen agtaa la mariyey marka dadka waxaasoo warshado ah malaayiinna way qaxda by the way 100,000 kun waxay ku dhimatay badda iyo saxaraha ayay ku dhimatay oo Soomaali ah ma garanaysaa kumaan kun waxa xabsiyo iyo meelo badan bay ku baabi'een oo ku dhinteen ma garanaysaa malaayiin waxay u qaxday dibadda kumaan kun baa mataqaanaa gaalowday ma garanaysa waxaasoo dhibaato ah markay Soomaaliya ku dhacaysay kumaan kun 100,000 kun baa gaajo u dhimatay iyo oon iyo haraad hal wadda oo waddanka la mara lama jiro waddooyinkii waxaa weeye
waxay intay burbureen baa wax shaqaa kaba qaban ma garanaysa si fiican wax ilaahay abuurtay oo kaaba ah oo dhulka wadanka uu leeyahayna haba yaraatee ma jirto hal irbad xataa ma samaysan karaan wadankaad aragtay ma garanaysa marka dadka waxaas wax ka baran waayey waxaasoo dhanna waxaa keenayo qabyaaladda iyo faragelin siyaasadeed iyo dad calooshood u shaqaystayaal ah oo ajnabi iyo soomaali ah oo shaar qabiil soo gashanayo shaar qabiil soo gashanaya by the way qabyaaladuna waa drugs waay sababtaa marka lagu leeyahay khamriga iyo khamaarka waxaa la isu raaciyey waa isku nooc waaye isku nooc bay maskaxda u bedelaan qofka khamaarka ciyaarayo waa qof sakhraansan waaye sidaa darteed qofka qabyaaladda ka shaqaynayana waa qof sarqaansan waaye marka imagine markii ummadda intaas oo kumaan kun ah boqolaal ay sarqaansan yihiin oo uu ku jiro ninkii odaga ahaa oo laga yaaba dadkii xataa dadka diinta u nasab sheeganaya ay ku jiri karaan oo siyaasiyiintii ay ku jiraan ma garanaysa dadkii mataqaana ummadda hoggaankeeda noqon lahaa hadday qabyaalad ka shaqaynayaan ay sakhraansan yihiin ka hor see waddanka u hagaagaya adag tahay hadda marka Kenya mucaaradkii kuwa ugu tunka weynaay Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Khayre ayaa jooga oo isbahaysi la samaystay labada madaxweyne oo ka soo kala jeeda laba maamul goboleed ugu waaweyn dalka ah inta loo socdaa markaa fiirsid marka what is the next move wallahi maxay samay rabaan waxaan waad ogeydoo shalay waxay lahaayeen farmaajo ka soo baxa berri waxaa imaanaysa war xasan oo ka soo baxa farmaajo ka soo baxna sharci ma ahayn xasan oo ka soo baxa sharci ma noqonayso marka waxaa leedahay isgoyska ayaa taagan yahay ma garanaysa sababta qof haddii constitution ama nidaam uu jiro qof shacaba intuu boor soo qaatay inuu yidhaahdo war hebelow ka soo bax qabyaalad darteed iyo wax la mid ah sax maaha marka haddaan maalinba ku jirno farmaajo ka soo bax xasanow ka soo bax hebelow ka soo bax ya haddii ma soconaysa farmaajo ka soo bax shalay dad baa dhahaya laakiin maanta waxaa la leeyahay qof ku dhiiran kara male inuu yidhaahdo xasan sheekh soo bax way imaanaysaa farmaajo ka soo bax waxay timid markii uu xilligii loogu talagalay yaa dhahay xasan sheekh soo bax marka mucaaradka dhahayo sheekh shariif iyo gruubkiisaa dhahaya de iyo dadka taageersan ka soo bax waa dhahaya la shaki waay laakiin weji kale farmaajo soo bax weji nooc kale lahayd waagaas laakiin hadda wejigaan xasan soo bax waxaa u malaysaa dad badan oo xasan difaacaya in la heli doono mayda markii horeba ninka la yidhaahdo ma ogtahay haddii hadda farmaajo uu dhihi lahaa isaga laftiisa mudaharaad ha la qabto waxaad u malaynaysa malaayiin baa soo bixi lahayd mudaharaad u samaynayso farmaajo meeshaada joog dhahayso xamar waa ka buuxeen ma ahan fiiri markii koox yar oo 5,000 ama 2,000 ah xamaroo dhowr milyan degan tahay markay yiraahdaan ay isu soo baxaan micnaheedu ma ahan ummadii oo dhan baa fikirkan taabacsan ma ahan ma garanaysaa marka hadda waxaa aaminsan tahay nimankan Kenya jooga hadda waxay ka shaqaynayaan xasan oo soo baxay ka shaqaynayaan laa shaki inay imaanaysa xasan oo soo bax markii maalintii waqtigiisa u dhamaato laa shaki way imaanaysaa 2 sano in loogu daro rabo xasan sheekh والله هدي أنا ما قرنا هيو هدي أحمد مدوبة يدني وأفر سنة للدريرة هي إن يكرا وأنا كوجود درينا متقانا هدو دي ما قانو من 100 مليون سيو دور 100 مليون كي بسيو أو يبسدو أنا ما قرنا هيو عكت سنة مالنا سكة جواه معنا ما هدو قطدي ويبسدو يرادو هي العكت قاطع أنا 4 سنة يقول نفط lacagta intaas leegdano haysta ma aqaan 2 sano igu dhufta dadkoo dhan ma wada iibin karo axmed madoobe iyo dani gato haddee dadka kaloo dhan ma iibin karo ummadoo dhanna lama wada iibin karo siyaasiyiintoo dhanna lama wada iibin karo marka waa wax loogu talagalay
ciidamadan ajnabiga ah iyo soo duulayaasha nimanka la yiraahdo iyo faragelinta dibadda reer galbeedka iyo ajnabiga waxay ugu talagaleen sidoodaba Soomaalida in la kala qaybsho waxa la yiraahdo divide and rule qaybi oo xukun marka sanad walba in isgooskan la taagnaado isgoyskaas la taagnaanayo saas waa ugu dambeyntii marka halkee ku soo biishwanay baasha waxay u badan tahay inay ku soo biyo shuban doonto amar ilaahay kuma darine in qofkii nimankan siyaasiyiinta ay diyaaradaha ka daataan sidii Kaabul oo kale Kaabul wixii ka dhaco kale unbaa la sugi karaa macnaha in diyaaradaha laga daato ama badda inta la galo lagu xarqado ayay imaanaysaa laa shaki waa see diyaarada wadda yaa ka daadinaya diyaarada marka dee al-shabaab baa ka daadinayso oo micnaha dhexdooda kasoo dhex bixi markii nimankan is haysto dhexdooda kasoo bixi malada shabaab isgoyskan maalin walbaba hebelow soo baxayo isbaaro iyo ku nasiibsasay u jirto marka dambe waxaa imaanayso qoladan al-shabaab baa imaan doonto kadibna kuwii hore u cararay oo sii baxsadaa ama diyaarad raacay waa laga yaabaa kuwa dambe waxaa laga yaabaa in dee ay haleeli waayaan qaar baa haleeli waayaya dee waa laga yaabaa inay diyaaradaha ka daataan marka waxaa la sugaa ummadda Soomaaliyeed waxay sugtaa in nimankan ajnabiga ku gaaban ee ummadda jahawareeriyey ee ummadda baaba'ashay iyo ummadda duleystay ee dowladnimadii Soomaaliya burburiyey kuna tuntay inay marka dambe de qola saddexaad macnaha inay codtanto soo dhex gashay intay timaado ay markaa ka faa'iidaysato khaladkan ciidda ka batay intay ka faa'iidaystaan sidii dee Taliban ay uga faa'iidaysatay ay uga faa'iidaysatay musuqmaasuqii iyo faragelintii iyo magaciisii ay uga faa'iidaysteen saasoo kale uga faa'iidaysanayaan marka waxaa weeye diyaaradaha baa laga daadan doonaa saasay u badanta injineer aad ayaa u mahadsan tahay wareysigeena halkaas ayuu ku ekaa daawadayaal intaan ka kulmi doono waxaan idhaafnay salaanta islaamka